dhulku waa meeraha kaliya ay ka jirto nolol dhab ah misana la taaban karo waxa ku nool dadyo lagu qiyaasay 8.1 bilyan oo qof hadii la yiraahdo qof waliba hal sheego magaciisa oo hal lagu xaadiriyo 5 ilbirqsi gudahooda dadka oo dhan waxay nagu qaadanaysaa inaynu tirino 1268 sano sidoo kale waxa ku nool dunideena 20 kwintilyan oo xayawaano ah oo u dhiganta tirada laba la raaciyay 19 eber cadada dhirta iyada warkeeda badaa oo lama yaqaano si waxa loo badinayaa inay u dhaxeen karto cadada tirada dadyowga iyo midda xayawaanadaba dhulka aynu ku noolnahay 72% waa biyo biyahaasina 96.5% waa biyaha badda halka 2% ay yihiin biyaha barafka boqolkiiba halka soo harayna waa biyaha laga helo wabiyada baliyada harooyinka iyo waliba dhulka hoostiisa waana biyaha kaliya ee uu aadanuhu cabi karo sidoo kale dunideena waxa ku nool xayawaano aynan indhaheenu qaban ilaa aynu isticmaalno microscope mooyee sida bacteria fungi iyo fairies hadaba guud ahaan nooleyaashaasi ee kala ah dadka dhirta xayawaanada iyo waliba ilma aragtayaasha waxay ku jiraan hanaan dhan waliba ka dhameystiran oo loo diyaariyay inta aanan la abuurin iyaga ka hor waxaanu u diyaariyay hanaankaasi alla awood badan misana aqoon iyo doonis u saaxiib ah si su'aasha ay isweydiiyaan badiba alla koodyada iyo gaalada ayaa ah Allah abuuray ajaa'ibtaas oo dhan tolow isagana yaa abuuray su'aashaasina waxaynu kula foguri doonaa barnaamijkeena maanta ee soo dhawaada saaxiibayaal ahaantii su'aasha ah Allah subhanahu wa ta'ala ya abuuray waa su'aal aqli ahaan iyo fikir ahaan ba aad u qaldan qofkana weydiinayo su'aashaasina hadii uu yahay alla kood aaminsan falsafada iyo sayniska oo kaliya waa qof aanan mantiq ahaan dhisnayn cilmi ahaan inuu dhisnaado iska badaayay waayo alla koodku kolkii hore uma uusan aaminsanayn jiritaanka alle ee maxay tahay sababtu uu inoo weydiinayo Allahs uusan jiritaankiisa aaminsanayn qofkiisii abuuray kaba soo qaad alla koodku inuu u rabo su'aashaasi jawaabteeda cilmi ahaan ama qofkana weydiinayo inuu yahay qof muslim ah si tashwiish uu ku furan yahay haddaba si aynu u la fogorno su'aashaas jawaabteeda waxaynu ku dul istaagaynaa barnaamijkeena 3 qodob qodobka koowaad sameeyaha iyo la sameeyaha waxay leeyihiin qaab dhismeed kala duwan labadooda in si isku mid ah laga dhigo misana isku su'aal la iska weydiiyana waa su'aal bataatan baqaldan waana sida inaga oo isweydiinay kitaabkan waxaa qoray caawiye ee tolow caawiye isaga qoray gurigan aad arkayso waxaa dhisay injineer ee tolow injineerkaasi yaa dhisay isaga ama hadii ay ahaan lahayd gameska aynu ciyaarno ama ugu yaraan softwareada aynu isticmaalno waxaa kood gareeyay programmers ee tolow programmerskaasi yaa iyagana kood gareeyay arinkuna wuxuu ku soo biyishwanayaa in sameeyaha iyo la sameeyahaba oo isku si looga fikiro waxna la isaga weydiiyo bataatanba inay tahay aqli xumo maanliidnimo iyo waliba aqoon darro oo sida aynan macquul u ahayn in kitaab uu caawiye qoray la iska weydiiyo caawiye isaga yaa qoray sida aynan aqligal u ahayn in la isweydiiyo injineerka guriga dhisay yaa isagana dhisay ayayna aqligal u ahayn in allihii koonkan abuuray la iska weydiiyo isaga yaa abuuray waayo abuuraha iyo la abuuraha waxay ku kala jiraan laba xaaladood oo kala duwan waxayna leeyihiin laba qaab dhismeed oo kala gedisan waxaana qasaba in mid waliba dhinaciisa loo baaro oo aan la isku xirin kolka aynu dhahno alle ayaa koonkan abuuray ee alle yaa isaga abuuray waxaynu ku fikiraynaa oo aan isla qaanad gelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala iyo koonkaba koonkana sida inuu ognahay qaab dhismeedkiisu waxa uu ka samaysan yahay maado waana jira bilaaw iyo dhamaadba leh halka Allah subhanahu wa ta'ala uu ka nasahan yahay inuu yeesho xilli goob iyo maadaba waana waara jiri doona abid Allah subhanahu wa ta'ala waa midkii wax aanan horay u jirin ka abuura wax jira misaan arinkii uu abuuray u yeela hanaan uu la janqaadi karo waana midka kaliya ee ka nasahan xumaan oo dhan iyo in la barbar dhigo koonka iyo makhluuqaadkiisaba qodobka labaad ee diiday in Allah subhanahu wa ta'ala la abuuray ayaa waxa loo yaqaanaa tasalsul al-nihaa'i ama aragtida bootstrap paradox oo ah aragti qeexda xiriirka aan dhamaadka lahayn ee ka dhasha cause and effect sabab iyo saameyn oo tusaale ahaan hadii ay waajib ahaan lahayd si aad muuqaalkan u daawato inaad qof fasax ka soo qaadato qofka aad fasax ka soo qaadanaysana si uu kuugu ogolaado daawashada muuqaalkani ay qasab ku ahaan lahayd inuu qof kale fasax ka soo qaato
qofkaasina qof kale qofka kalena qof sii kale oo arrinku sida uu ku sii socdo adiga haatan muuqaalkan daawanaya talow miyaa daawan lahayd jawaabtu waa maya waayo daawashada muuqaalkan waxaa lagu xiray silsilad aan dhammaad lahayn tabtaas oo kale ayaa ka dhalanaysa su'aashii ahayd Alle subxaanahu wa ta'aala haddii uu koonkan abuuray isaga yaa abuuray kaba soo qaad haddii uu Alle subxaanahu wa ta'aala si uu abuuro koonkan ay jiri lahayd awood ka sarreysa uu ku xiran yahay awooddaas uu ku xiran yahay waxaa qasab ahaan lahayd inay awood kale ku sii xirnaato awooddaasi kalena awood sii kale oo adduunka aynu ku noolnahay weligii lama abuuri lahayn waayo allihii abuuri lahaa waxa uu fasax ka sugi lahaa awoodaha ka sarreeya ee aan dhammaadka lahayn si taasi ma aynan dhicin oo waan aragnaa in koonkan la abuuray taa oo ka dhigan in allaha abuuray koonkani uu yahay mid aan ku xirnayn awood kale si uu yahay alle keli ah awoodda lafteedana isaga ayaaba abuuray waana barbilowga silsiladaha sababta ku dhisan qodobka saddexaad waxaa jira oraah afka qalaad lagu yiraahdo if there is no time there is no before haddii uunan waqti jirin horeyna ma jirto yacni waqtigu sidiisaba waxaa lagu qeexaa inuu yahay cabirka muddada dhacdooyinka waxayna dhacdadu u dhaxaysaa kol waliba ka hor iyo kadib ka hor oo ah xilliga ay dhacdadu dhacday ka hor iyo kadib oo ah xilliga ay dhacdadu dhacday kadib haddaba inaga oo halkaa ka duulayno aynu u soo noqonno ka jawaabistii su'aasheenii tusaale ahaan moobilka ninkii sameeyey wax uu jiray moobilka ka hor taleefankii iyo injineerkii sameeyeyna istaragjar ahaan way kala duwan yihiin oo haddii taleefanka baasweer lagu xiro injineerkana baasweer miyaa ku xirmaya jawaabtu waa maya waayo taleefanka gudihiisa xeerarka ka jira uma gudbayaan injineerkii sameeyey Alle subxaanahu wa ta'aalana waa sidaa oo kale oo maadada koonka iyo zamankaba isaga ayaa abuuray taana waxaa ka dhalanayo in Alle subxaanahu wa ta'aala uu jiray koonka ka hor inaysan xeerarka iyo qawaaniinta universiga aysan u gudbaynin Alle subxaanahu wa ta'aala waayo xeerarkaasi midkii dejiyey waa isaga sidoo kale Alle waqti uma jiro oo xilli uu bilowday ma leh xilli uu bilowday haddii uunan lahayna xilli uu dhammaanayo ma lahan intaa waxaaba sii dheer Alle waqtiga gadaal ayuu ka abuuray deedna waxa uu dhex dhigay koonka Allana waxa uu jiray waqtiga ka hor waana jiri doonaa waqtiga kadib Alle subxaanahu wa ta'aala jiritaankiisa naftiisa ayuu ka ahaaday oo uma baahna Alle kale oo dhankiisa ka ahaado tusaale ahaan haddii aad banaanka u baxdo iyada oo roob da'ayo deedna aad qoydo oo aan ku weydiiyo yaa ku qooyay waxaad igu leedahay roob ayaa i qooyay haddii aan kugu dhaho yaa qooyay roobkana waad igu qoslaysaa waayo roobku isaga ayaa ah ishii sababtay qoyaanka isaga ayaana wax qooyo ee lama qooyo tusaale labaad jamaacada masaajidka kolka ay xiranayaan salaad waxay ku xirtaan imaam oo wax uu sameeyay ayay ka daba sameeyaan haddaba haddii uu qof ina weydiiyo jamaacada oo dhan waxay ku xiratay salaada imaamka ee imaamku yuu ku xirtay waxaynu la yaabaynaa su'aashiisa waayo imaamku waa meeshii ugu dambeysay sidaas oo kale Alle subxaanahu wa ta'aala wax waliba isaga ayay ku xiran yihiin waana meeshii ugu dambeysay su'aashani inay aad u liidato waxaynu ka fahmi karnaa inay tahay su'aal ka hor imaanayso Alle subxaanahu wa ta'aala sifaadkiisa oo sida aynu wada ognahay Alle subxaanahu wa ta'aala waa mid keli ah waxba aanan dhalin misana aanan la dhalin wax la barbardhigi karaana aysan jirin haddaba su'aasha ah Alle subxaanahu wa ta'aala yaa abuuray waa sida iyada oo lagu weydiiyey walaalka kaaweyn meeqa sana ayuu kaa yaryahay qofka su'aashaas ku weydiiyana waa laba mid inuu yahay qof aanan kala aqoonin sifooyinka weyn iyo yar amaba inuu yahay qof waalan waayo walaalka kaaweyn marnaba kaama yaraan karo sidaasi si la mid ah midka abuuray wax aanan hore u jirin in la yiraahdo isaga naftiisa yaa abuurayna waa sida iyada oo la isweydiiyey walaalka kaaweyn meeqa sana ayuu kaa yaryahay waana su'aal mantiq ahaan aad u liidata intii aan soo sheegno oo dhan waxaa ka sii daran in alkoodyadu ay diidaan Alle inuu jiri doono abid se waxay aqbalaan in koonku uu ka samaysmay qarax aad u weyn uuna jiri doono abid bal fiiri Alle subxaanahu wa ta'aala astaamihiisi way u diideen se isla astaantii ahayd waaritaanka waxay u ogolaadeen maadada iyo koonka aqli xumada intaasi la eg miyaanan ahayn wax Alle subxaanahu wa ta'aala laga magangalo misana shaydaanka la isaga naaro waana sababta uu nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoo amray inaynu dhahno آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى iyo rusushiisa ayaan rumeeyay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka magan galayaa shaydaankii la fogeeyay ugu dambeynna haddii aad halkan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ay inoo tahay saaxiibayaal inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tagaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim